waxaan ka warramayaa waxa weeye doorashadan xamar ka socota dad la leeyahay waxa ka socdaan gobolada waqooyi waxa ugu yeedheen waxaan doonayaan ka hadlo Yuusuf Garaad oo magacaabay wakiilka badda cas waxaan doonayaan ka hadlo nin la Cabdi Yuusuf oo shalayta horena oo sheegay shalaytana hadliyo lahaa waxaan in xoog lagu muuqdo Soomaaliland ayaan doonayaan ka hadlo horta waxa weeye waa nasiib darro maanta inagoo dalkeeni 30 sano gacanta ku haynay alxamdulillaah rabbil caalamiin in maanta xamar la yiraaho doorasho ka qayb galiyaan dadka reer Soomaaliland waxaan ii sheegaya bal waxaan ay sheegayaan leeyihiin dadka ka socda gobolada waqooyi waxa weeye waxay yiraahdeen konton xildhibaan oo waxa la isku haystaa ka socda gobolada waqooyi horta dadka halkaa tagay waxa weeye waa dad iskoodu tagay konton toddobada la sheegay leeyahay waa xildhibaano kuma jiraan xildhibaanada la leeyahay way ka socdaan dhulbahantiga warsangeli waxay ku eegayeen qura dadka ku abtirsada ciisaha isaaqa iyo gadabuusiga iyo nin gabooya ayaa weeyay leeyahay waqooyi gobolada waqooyi dadka halka ay sheegayaan ciisaha waxa loo qoondareeyay oo lagu qoondeeyay meesha la yiraahdo Carta 9 xubnood 9ka xubnood baa waxa magacaaba Ismaaciil Umar Geeli qabiilhamu ku magacaaba Soomaaliland kama socdaan qoladaas wax u jeed 8 bay leeyihiin soomaali ciisaha sagaal waxa ka socda gadabuusiga iyagoo dad iskood bay u tagaan cid magacaawda ma jirto isaaqana waxa weeye markaan golaha sare lagu darin aqalka sare ee wastee labaad iyaguna waa iskood bay u tagaan waa dad qabiil ku tagay dad dalka iman kara maaha anagu haddaan soo bixi lahaana maanta laba ugu hadleynay iyagoo maqan baan ku xukumi lahaa in khaa'imiin qaran yihiin waxa markaa jira waxa weeye hadda wada aqriisu way ishayaan qolna waxay leedahay Cabdi Xaashi ha soo magacaabo qolna waxay leedahay Mahad soo magacaabo aba khadar maxay ugu kala duwan yihiin waxay ku duwan yihiin qolna waxay gacan siinaysaa ay doonayaan inay codka siiyaan ninka farmaajo ee ogtiin cadaawadu qaba tii Maxamed Saadi ka weyntahay ayo qaba Cabdi Xaashi qolada waxay qabaan ninkaas hal rido iska daa Soomaaliland Soomaaliya oo dhan ku haya dhibaato khatar gelinayo oo ninka ay ka suurto gashay inuu ciidamo urursado oo badaha Soomaalida oo wadan shisheeye gacanta u galiyay Afrika ka saxay wanaka ka suurta gashay Eritrea oo dhulka haysata Djibouti oo Soomaalida inuu ka qaado cunaqabayntii uu la saftay horta qolkaasi la safantay wax qabiil ma jiro wuxuu dhan waa meesha uu tagay naga inuu matalaan in lagu murmo ma laakiin qofku leh war iska ninkan inkastoo aan Soomaaliland taageersan haddana waan ka soo horjeedaa in la xasuuqo wax la yeelo iyo mid taageeriye kii in xasuuqiye ninkan maanta Cabdi Yuusuf shalay talaha xoog lagu soo sameeyo horta ninkaas marka ay daga waramo waxa weeye wuxuu ahaan jiray lama daayo haysan jiray doobiil waxa jawhar buka markaas uu galay guulwadayaashii Maxamed Saad Bare markuu siyaad ka yaabay sidoo ninkan qabiil uu yahay ayuu soo dalacsay ilaa wasiir ku xigeen buu gaarsiiyay maantana inuu hanjabeynay waxa weeye laba waxba uu ka helay USCO da uu suurtay gelisay inuu haddana maanta inankii uu adeerka Maxamed Saad Bare inta codsiyaan fiila Soomaaliya geliyaan oo isaga ka dhigto la taliye taas waa suurta gashay haddii kale wuxuu ku baqtay lahaa Burtinle
ayuu ku bakti lahaa inuu xamar joogo ma xaraam bay ka ahayd iyada inagoo ilowna godobteynii oo isaga in badan oo caynkaas oo gamcaha dhiiga ku lahaa dhiigana gamca caruurteena dhiig ku leh ayaa adduunka iyo xamar meelaha daadaashoonaya ninkaas waa halkiisi tan waxa weeye ka hadlo ninkan la magacaabay Yuusuf Garaad waa inagu foolxumo mar horena wuxuu magacaabay farmaajo inaan u adeeryahay ilmaariyiin oo ila belel maanta Yuusuf Garaad wada dhulkan la sheeganaya waa badcas watiina waxa weeye in golayaasha guurtida iyo baarlamaanka soo saaraan oo ka hadlaan arrimahan la inagu socdo dushayna la inagu dulshaxayo ina ka hadlaan gobolada waqooyi waxay ugu yeediyaan wax gobolada waqooyi aan jirin dadkaasi dad ina matalaan aan ahayn wayna ka hadashaa badda cas in inagu leenahay oo inaan ka ila caabi waa ku dhashay reer caabi waaqi inaanu baddeena aanu u sameyn karin magaranaysa wakiil waxa weeye inuu Cabdi Yuusuf nooshan joogo in maanta adduunka la maqashiyo xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeday baa la isku haystaa inagii baa aamusan marka aamuskaaga waxa weeye in aamusan baa lagu meeriyaa baa in waxaas wax ka jiraan baa la moodiyaa marka waxaan leenahay dawladda golayaasha arrintan waa in laga hadlaa adduunka loo qoraa bayaan cad la soo saaraa inaanay dadkaa jooga xamar sidaa uu soo shaqo doontay magaranaysa farmaajaba koo shidad sita uu madaxweyne ku noqday ayaguna u tageen inaa boosaska loo bixiyay dir waqooyi inay ku soo shaqaystaan ku noolaadaan laakiin wax alla wax ay dad matalaan inaanay jirin waxaan leenahayna dadkan Facebooka qabiil ka dhigana warnina waa nin Maxamed Siyaad Barre la socdo leh magaranaysa hala doorto waa afayeen u noqday nina waa nin le waa ninkaas waa kharaabe waa cadowgeeni oo waa ninka Maxamed Siyaad Barre waxaanu 15 sano ku gaadhay buu 3 sanad gudaheed ku gaadhay oo intuu raglaayay إلا كدلي إلا كأعصي رجيس واحد الجماعة USA أبتقيت حاسس كيسي مسخول كتشبيه أنا لقيت بحر بيرة بتجي شن يتبقى كدلي ما أنت عيدا موسى ما يستوي إريتري كسرة عبرتي الدنيا أغلى جيسة إنه ضدك عني محمد سياد برا إلى النشيري إريدي إنه حا يروح يركض وجيد مثلاً ساي إريتريا inuu ku caaburiyo ku qabsado waxa leenahay dadka reer banaadir meel kale oo ninkaas xukumaa ma jiro iyo kooxdiisu horaadii ku sheegay baydhabo ma xukumo Ismaaciil ma xukumo Beledweyne ma xukumo Garowe ma xukumo idinku ida xukuma lacagtiina ku socodso magaca siisteen ayuu maanta idku haystaa oo adduunka lacag ka qaata federal Soomaali war Soomaali xaga Soomaali jirta federal Soomaali idinku ida xukumaya كجلجيشة ندورش وما تشيدو تاريخا هتدي أو أديركي أيون كاني والدنيا إنه حوج ندكو هيسن معي كيو كبنا الله الدنيا كبنا كسارة يعني لا دارينا ما كان وحلاها عبد يوسفنا قدبت يده أكو حق حرقر ميل ونوع على مثلا تعديق غير كذا لا وحق سيد تصدي سيد روح دارنا كل سوق من أو كلمة هذا هي محكمة كو كاني يحرد جيستيبه يا رجمنيه دي الله هنا ما قال وحوي ما شو يكتكتي ما كان لو ما سيد ويكتكتي سقاون والله وضح لي سقاون يلا وضح لي في الصومالية ما تكشين ما تحمر وحنا ندلي وحوي ورجع مانتا أنا كان بورسيش تكوي لو عشرة شهور أنت يسكو حميني أنت أورتين يدي ومدحوينه فدراله يو فدرال قال يدكو يحكم معي يو يحكم نيو بلاد حيو حكم ما يحكم لا رجع حكم ما يرجعوا حكم ما قروا حكم ما كانوا علينا هاي نساو كلا قرطة دولتها هذا شو بدأ عص هنا قال لي